بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى اللهم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعو عبد الله عبد الرحمن أن وحن جعلها إن كلمة يرك إلى هذو arrimaha la yaab kale ee Soomaaliya ka socda waxyaabaha ka dhacaya Soomaaliya Soomaaliya waxaad u malaysaa dhibku inuu ka sii badanayo maalinta ka dambaysa qaraxyada ay sii badanayaan ummadii gumaadkooda oo sii badanayo maxay ahayd iyadoo la doonayo dad ay ku andacoonayaan inay soo celiyaan dawladda islaamka ee burburtay ee Cusmaaniyiinta iyo wax la mid ah maxay ahayd qaar kale ay doonayaan ayagu imaarado ayagu ay leeyihiin oo ku dhisan islaami inay hirgeliyaan fikrada fara badan oo noocaas ayaa jira. marka waxaan jeclahay inaan dhowr kelmadood ka iraahdo arintaas iyada ah dhageysti ama dadka ila socdo asxaabtaydahay waxa jirta marar fara badan in culimada Soomaaliyeed ay kulama yeesheen waxa kaloo jirta in dhacdooyin ay dhacaan runtii dhacdooyinkaas oo laga yaabo in diinta islaamka lid ku yihiin laga yaabo in maxay ahaato ay dambiye yar yihiin dambiye waaweyn yihiin waxba noocaas isku jirjira ayaga naftirkoodu waxaan tusaale soo qaadan karaa dhowr nin oo maxay ahaato mas'uuliyiin diiniya si qaldan u soo gudbiyay oo kaleeto oo kamid yahay Cabduqaadir Kishki, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, maxay ahaato rag kaleeto Ali Raagi iyo dad fara badan oo jira iyo waxba noocaas oo lamid ah. culimada Soomaalidu meel kasta ay joogaan seefta ay galka kala baxeen ummadii horkaceen waxay ku wajaheen nimankaas iyaga ay ku sii jeediyeen waxa la yaab leh oo runtii la yaab leh oo muruga ah oo calool xumo ah macnaha iyo moraal dilaac ah in maalin ilaahay keeno dadkii Soomaaliyeed la xasuuqayo gaar ahaan magaalada Muqdisho dadka ku nool in dhammaantood ay toogasho ku xukuman yihiin cid ka hadlaysaana aysan jirin culimo horkacaysaahuna aysan jirin culimo fataawaad ka soo saaraysaana aysan jirin wax ka celinaahuna aysan jirin waraabaha cunaya macnaha ay noqdeen hilib bisil oo meel iska yaala oo nin kasta oo baahano oo ka dhargo wax la yaab la weeyaan runtii wax macnaha maskaxda bini aadamka ka weyn weeyaan. waxaan jeclahay inaan ka hadlo dhowr arrimood dhowr qaybood waxaan jeclahay inaan kelmad iraahdo anigu qasab cinda ku malihi waa iga talo walaaltinimo weeyaan talo muwaadin weeyaan talo islaam weeyaan maxay ahaato ciidan u taliyay cid war iga yeelisan anu garan maayo laakiin qofkii tala iga yeelaya war iga yeelaya waxaan laba qolo ayaan jeclahay inaan laba kelmood iraahdo waliba saddex qolo ayaan leeyahay. qolada koowaad waxa weeyaan culimada Soomaalida meel kasta joogaanba culimada Soomaalida waxaan dhihi lahay war Ilaahay ka baqa culimo Ilaahay ka baqa war sidaan wallahi baan ku dhaartay inaan diinuna ku joogaynin dalna ku joogaynin dadna ku joogaynin dalkiina gacantu ka baxay dadkiina gacantii ka baxeen diintiina waa la fasaadi waxaana fasaadiyay oo dhibaatadaas faraha badan ka shaqeynaya saddex qolo waa culimada siyaasiga iyo nimanka dagaalamaya oo xabadda sita oo dhahaya dawladda islaamka soo celinayna wixiiba way kharibeen way baabaasheen Ameerika dhigeen ka culimo ahaan waajiba idinka saaran culimoy aniga ra'yigayga iyo taladaydu waxay tahay culimoy haddaad war iga yeelisaan Ilaahay dartiis aad wax maqlaysaan waxaan dhihi lahay culimoy dhaqaaqa ha fadhina Nairobi lagu shiray Hiblaa lagu shiray magaalo Hiblaa waxba taramayso waxaas duurka ugu taga nimanka dhalinyarada ah dadka laynta ku haya nimanka dadka gumaadayo dhalinyarada oo dariishanaya aqwaalul ulama ee dadka ku baabi'inaya u taga oo maxay ahayd la hadla ha idin dileen ahlu jannad noqonaysaan maxay ahayd xiwaar la fura fataawaad ka soo saara sil buuxda oo la yaqaano oo hufan inaad uga hadashaan weeyaan taas ayaa muhiim ah islaayay intaad ka hadli lahaydeen dariska waxaana ku fiican waxaana qof waxyaabo ibaaxaada oo macnaha aad iyo aad furuuc u ah aad iyo aad furuuc hoose runtii in maxay dadka lagu inta la soo aruuriyo kumanaan kun oo qofood looga sheekeeyo macnaha umadiina dhiig baxayso 100% waxa weeyaan wallahi calool xumo weeyaan runtii calool xumo daran weeyaan runtii waxaan dheela culumooy Ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala diinta waa taqaaniin arintan iyada hadaan la bedelina wax soconaya ma jiraan absolutely wax soconaya ma jiraan aniga aragtidayda diintuna waa baabaaysa dalkuna gacantu ka baxaya ummaduna meesha ka dabar go'aysaaba waa koow qoladaas aan dhihi lahaa anigu
qolada labaad oon jeclahay inaan la hadlo waxa weeyaan dowladda soomaaliya ka jirta hadda waa dad dhalinyaro ah oo mutacalimiina weeyaan dad wax fahmaya adduunyada yaqaana weeyaan qaabkay u dhaqantay siday tahay haddii aysan suuragal ahayd inaad xiwaar la furi kartaan oo saaxiibadiin ay idinka hor taagan yihiin inaad al-shabaab la hadashaan ood xiwaar la furtaan ood wax kula heshiisaan walaalayaalow dadka soomaaliyeed u sheega dalkan soomaaliba iskale shacabka soomaaliyeeda iskale mana doonayaan wax maxayto mara hoosteed la geliya ma doonayaan khaa'imiin ha noqonina nimankan dhallinyarada ee dadkii baaba'shay ayagoo magac diimeed sheeganaya macnaha wax la yaab la weeyaan horta waa in la fahmaaho shacabka soomaaliyed aad u sharaxdaan meesha qaladku ka jiro muujiya oo u saara maxayto guddiyaal u saara oo guddiyaal culumaa u magacaaba oo guddiyaal madax bannaan u magacaaba guddiga doorashada ee madaxa bannaana la yidhahdaa guddiga nabadgelyada madaxa bannaan maa la sameeyo guddiga madaxa bannaan ee ka shaqaynta musaalaxada iyo nabadgelyada maxaa loo sameey waayey walaalayaalo haddaysa suuragal idinka ahayn waxaad ogaataan inaad qayb ka tihiin laynta ummadda soomaaliyeed iyo dib u dhaceeda dalkan aad gacanta ka ridaysaan cadow aad gacan gelinaysaan ummaddan aad baabi'inaysaan diinteedii iyo qiyamkeediina aad meesha ka saaraysaan nin baa wuxuu ku andacoonayaa dowladda islaamka la burburshay dowladda islaamka yaa burburiyey dowladda islaamka dadkaa burburiyeen adinka naftarkiina burburiseen dowladda islaamka waxa aad meesha la soo fadhidaan 24 saac ayaa dowladda islaamka burburiyey qoladaas dowladdana saasaan dhihi lahay saddex waxaan jeclahay inaan kelmad idhaahdo nimanka dhallinyarada ee dagaalamaya oo xabadda ridaya nimanka dhallinyarada waxaan dhihi lahay walaalayaalow horta waan ogahay in badan oo ka mida daacaday ka tahay dagaalka ay ku jiraan waxay isleeyihiin diinta islaamka soo celiya waxay isleeyihiin maxayto diinta islaamka la isku xukumo dowlad islaam dhisa wax noocaas isleeyihiin laakiin xaqiiqda ayaan jeclahay maanta idiin taabto fataawaad fara badan aad maqashaan wax walba ayaad maqashaan laakiin soomaalidu waxay ku mahmaahdaa tuuga lama tuugee mid soo bariye asaga lama baryee waxaa loo tagaa saadirkaa loo tagaa allaha subxaanahu watacaalka ayaa loo tagaa oo wax la weydiiyaa waxaan idin leeyahay oon idinku dul akhriyayaa aayadaha ilaahay subxaanahu jalla wacalaa ee qur'aanka waxaan maqlayay cala dheere iyo dad noocaas oo fara badan oo ka hadlaya oo dhahaya macnaha meel islaam joogaa lagu dagaalami karaa magaalada muqdisho kale waa lagu dhex dagaalami karaa meel gaal ku jiro waa lagu dagaalami karaa macnaha waxaa loo sameeyaa waxyaabo fara badan oo aara ah ka jira laakiin ra'yi walba ee jira waxaa isku fuuqsanaya aayadaha qur-aanka ra'yi walba oo jira aayadaha qur-aanka ayaa xaasilka ah waxaan jeclaa dhowr aayadood inaan intuus haddii ilahay yidhaahdo suuradda la yidhaha suura cankabuut aayadda 31 32 akhriya qof walba u akhri dhallinyaroy diinta waa taqaaniin kitaabka qur-aanka waad akhri kartiin fasirka waad fahmaysaan akhriya bal aayadan iskuna daya inaad fahantaan allah subxaanahu jalla wacala wuxuu leeyahay walamaa jaa'at rusulunaa ibraahiima bilbushraa qaaluu inaa muhlikuu ahla haadihi alqaryati ina ahlaha kaanuu daalimiin qaala ina fiiha luudan qaaluu naxnu aclamu biman fiiha lanunajiyanahu waahlahu ila imra'atahu kaanat min alqaabiriin ikhwatii fillaah rasuulullahi ibraahim calayhi assalaam markii uu u timid risaaladii ahayd in wiil ilaahay ugu bishaaraynayo rusushii u siiday bishaaradaas waxay u sheegeen inay soo macnaha haligi rabaan magaalooyin ka mid a wuxuuna ku yidhi magaalada aad u socotaan luud ayaa ku nool seed u halligaysaan magaalo luud ku nool yahay magaalo luud oo ku nool yahay mu'mina seed u halligaysaanu ku yidhi ibraahim calayhi assalaam allah qur-aanka muxuu ku leeyahay wattabic millata ibraahiima xaniifan waajib weeyaan diinta nabiyullah ibraahim in la raaco walaalayaalow marka inay reeban tahay sideedaba ay reeban tahayba magaalo qof islaamka oo ku jiro in lagu dagaalamo aayadahan labadaa ayaa ku tusaya iyo kuwo kaloo soo socda haddii ilaahay yidhaahdo haddii fataawaad fara badan oo ay jiraan oo niman culamaha hore ay wax fatwoodeen oo u sameeyeen axkaam iyo wax noocaasa waxaas wax ka soconaya ma jiraan tan xaasilkaa ee ilaa la fahmana aan waxba aysan dhismaynin waxna aysan hagaagaynin waxna aysan kala soconaynin islaamna uusan jiraynin dowladuna aysan jiraynin tan weeyaan qofka islaamkaa magaalada hal milyan oo qof hadday ku nooshahay hal shakhsiyo islaam oo ku dhex jiro halkaa shakhsiyo islaamka inay ku baxsadaan weeyaan halkaa milyan xaqiiqduna sidaas weeyaan waad arkaysaan watanaha qaala ina fiiha luudan war luudaaba ku jiraysad u halligaysaan nuur nabiyullah ibraahim calayhi assalaam qofka islaamka in lagu baxsada weeyaan maahan in maxayaata lagu hor ordo oo lagu kor dagaalamo maahan sii soco waxaan jeclaa aayad kale inaan tuso haddii ilaahay yidhaahdo fiirsha bal aayadan suura fatxi
سفي عن أركسة وسفي عن أخرية الله سبحانه جل وعلا وكرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ودين تان كان يسقو إلهي وكرم إنه كده على مجال مكة صوت وكرم بحيث مؤمنين يا مؤمنات أي كل حجروا الله سبحانه جل وعلا أدنى نقولين أدنكم أي مجال كنول حد يكسر من الهايين وليه قالوا كل جود أي سوء من الهايين إلهي ودن كوصل لدي الهزل العذاب الهيدين عذابت إلهي كسر دقيقة قالوا سو ولا الله يلهاي ولا ليالو فير شيا لم تعلموهم بل أفير صدا أرنتاس إيدا لم تعلموهم أيضا أجين فيري هذي أجين ومكرر بنتها بطوط طلبة مجال قف إسلامه ودقين هي أكته إنه كنولي هي إن باب إسو ودجال كأكتو محيط طرف شكل زمايدو طوط طلبة كرر بنتها وما تدري أنا كنت قالنتو أدو أجيها بس كم بدأ معنا أدون أجين أي حتى الجار دورية وحلي ما شانا هان لو تزجروا أيها إلهي سبحانه هذي كسوء من الهايين وقار سوء من الهايين قالوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وأن عذاب الهاي الله سبحانه جل وعلا أمينك وعذاب الهاي إخوتي في الله بل ركز آيات صفي عنه وفير صدا وروح الذي شيء والله أقسم بالله وحبطا وكمد هو خرافات ويان آياتها القرآن كقفك أركا أخرية فهمه إسكا إن ترى وحن أوجد بنيا آيات كلتان أوجد بنيا سورة فرقان آيات صدن ربي وحوليها سبحانه جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول الله محمد وحو نقنيا مد لدكو أهو نقنيا وكو دعوينيا وحو نريه دونا قومكي إلهي وقرآنكي وكيجرودين ويديدين والله تصي آيات قرآن هلو تصي رب العالمين سودجي إن تكون قنطا لغا ربا إن أضيعدا لغا ربا وديدي وحتى وحن ربا أقوال العلماء ربا شيغيغا إي فضوانيا ميدا حبطك قراعة سوريا أمام الله أنا كجوابية war wallahi baan ku dhaartay qof ka jawaabi karana uusan jirin hal shakhsi wala rasuulullaahi maxamed aan ka jawaabi karin wala malakul jibriil aan ka jawaabi karin wax ilaahay ka celi kara inaba allah ka dhigay ma jiraan walaalayaal oo dhalinyaro yaan leedin hudin yaan been leedin sheegin magaalo islaam ku dhex jiro ee aad ogtihiin islaam inuu ku dhex jiro tootale dagaalkeeda wada ka reeban qof kasto islaamuna ilaa uu fahmo cilmiga noocaas oo xaqiiqada ku salaysan oo kitaabka ilaahay ku jira wax soconaya ma jiraan wax la dhisi karana ma jiraan وحقاقيانا مجران حقيقتنا سداس ويان حقيقتنا سداس وح الله وحي كسوكيا بربر يهوغا ودن بينيا دولة اسلام بابا محا بابا شي دولة اسلام كا وحا بابا شي بادل بابا شي بادل اعدال دره بابا شي حدنا ما دسميان ابسولوت ما دسميان صوت ودق دني بكو سودان با ودق دني كو سودان markaas cid walba haweysatay cid walba u soo hawootay laakiin xaqiiqdu qofka muuminka hadii la sharfo oo sharaftiisa la ilaaliyo dhiigiisa la ilaaliyo oo maalkiisa la ilaaliyo maqaasida islaamka la ilaaliyo sida saxda loo ilaaliyo ya wax walba hagaagayaan suura gal maaha mustaxiilna waaye in qof uu gaal hoos galo asagoo maxay heli kara sharaf iyo qadarin heli kara laakiin dadkii sharafteed ka qaadeen diinta sharafteed ka qaadeen jihaadkii sharafta ahay meesha ugu sarreysa darajada ugu sarreysa islaamka waxaad ka dhigteen ducfaad ka dhigteen iyo argagixisanimo iyo wax macnaha qofkii laga maqlaba uu yahay maxbuus uu yahay معناها أدي وابر واحد ودين وحماها والواد دمس إيه بابا إيه هوك واي ولا يارو دالن يروي إلهي كبقى آياتها القرآن كا إن كسو دول أخري وآيات إلهي محكمات أويان أفير سادة صفي عنو أفير سادة كون عمل فرع كداية داد كدبات تضاءت كويسان كداية داد كدبات تضاءت كويسان بالله عليك كداية انتاس أيان جعلها هنا سوق بيو إلهي أنه أنفعه هدي أن خير شيء إلهي بقى وافجي سبحانه وتعالى هدي أن وحقدين ربي عفي سيدا بدافع ودي سنية وحنا جعلها إن آياتك إلهي لو لغا نقول هذا هدي إلهي يرهدو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.